cudurkiyo karoona laga fajaacay fidma weeyaan adduunka ku faafaya ficil yeelo bulshooy feejinowbaan ku idhi sida aynu ogsoonahay daawadayaal marka ay bilaabmaan cudurrada faafa sida caabuqa coronavirus oo adduunka ku haya walbahaar walaac iyo weliba baqdin badan haddaba adiga daawada naftaada eheladaada iyo qaraabadaada waxaa kaa saaran mas-uuliyad ballaadhan taasoo u baahan taxadir iyo ilaalo badan waxaana loo baahan yahay daawada inaad raacdo tilmaamahan ugu horreyn waxaa loo baahan yahay inaad farahaaga si adag isaga maydho adigoo isticmaalaya saabuun iyo weliba wixii la mida taasoo ay khibradu sheegeen siiba inay fiican tahay saabuunta in lagu faraxasho daawada iyagana waxaa loo baahan yahay in aad iskaga karkariyo cuntooyinka sida hilibka hilib digaaga iyo weliba hilibka kalluunka daawada iyaduna waxaa muhiima inaad yarayso salaanta gacan qaadka ah taasoo sababi karta inuu caabuqani faafo haddii mid ka mid ah eheladaada asxaabtaada iyo qaraabadaada uu diiday inuu ku salaamo oo uu jeclaysto inuu afdhow kaa salaamo ha u arkin inuu diiday salaantaada ee u arag inuu u arkay badqabka naftaada eheladaada iyo weliba qaraabadaada sidoo kale daawada waxaa loo baahan yahay inaanad tegin goobaha ay ku badan yihiin dadka sidoo kale daawada iyaduna waxaa muhiima inaad yarayso booqashada aad ku tegayso eheladaada qaraabadaada iyo asxaabtaada sidoo kale sida ay khibrada caalamku sheegeen in marka aad qof la hadlayso inaad u jirsato in ku dhow 1 mitir haddii hore loo yidhi ka hortagga ayaa ka wanaagsan iska daaweynta badqabka naftaadu waa badqabka asxaabtaada